ogtahay inaad lacag aad u badan samayn karto adiga oo gurigaaga ama shaqadaada jooga. YouTube-ku waxa uu ka mid yahay shirkadaha sida fudud lacagta looga samayn karo. Haddii aan tusaale u soo qaato 6 bilood ee u dambeysay aniga waxa iga soo galay lacag gaaraysa 2160.62 oo dollarka Mareykanka. Haddaba mar walba anaga oo doonayna inaan wax ka bedelno nolosha iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee waayadan dambe shaqo la'aanta ku habsatay, waxa aanu idin diyaarinay koorso ku saabsan qaabka YouTube-ka lacagta looga sameeyo. Kooraskan waxa aad ku baran doontaan xirfado iyo xeelado aad u tiro badan kaasoo aanu daaha kaga rogi doono qaababka kala duwan ee YouTube-ka lacagta looga sameeyo. Haddii aynu milicsano dhalinyarada dhigeen ah sanadkii ugu dambeeyay ee 2018 lacagaha ay ka sameeyeen YouTube-ka, Jeffree Star waxay ka samaysay 18 milyan oo dollarka Mareykanka. Haddaba waxa ay soo duubtaa muuqaalo ku saabsan qaabka make-upka loo marsado iyo wixii la mid ah. Dan TDM waxa uu sameeyay lacag gaaraysa 18 milyan oo dollarka Mareykanka, waxaana uu ka ganacsadaa muuqaalo ku saabsan isagoo oo game ciyaaraya, isagoo aan wax dhib ah marin oo kaliya ka duuba shaashadiisa iyo wejigiisa sometimes ama mararka qaar. Dad Perfect waxa uu soo duubaa muuqaalo ku saabsan ciyaaro, madadaalooyin aad u tiro badan iyo wixii la mid ah. Waxa uu ka sameeyay YouTube-ka lacag gaaraysa 20 milyan oo dollarka Mareykanka, waxa uu ka ganacsadaa muuqaalo ku saabsan madadaalooyin iyo ciyaaro iyo xirfado wixii uu dadka dheeryahay. Jake Paul waxa uu ka sameeyay 21.5 milyan oo dollarka Mareykanka, waxa uu soo dhigaa channelkiisa muuqaalo ku saabsan kaftan, heeso iyo wixii la mid ah. Ryan Toys Review waa wiil yar oo 7 jir ah, waxa uu soo dhigaa ama ka ganacsada muuqaalo ku saabsan caruusadaha. Haddaba waxa uu soo dhigaa waxyaalaha carruurtu ku ciyaarto ama agabka carruurtu ku ciyaarto, taas oo uu ka sameeyo muuqaalo aad u cajiib ah. Kadibna waxa uu soo dhigaa YouTube-ka, waxaana uu noqday qofka ugu lacagta badan ee sanadkan YouTube-ka lacag ka sameeya, waxaana uu ka sameeyay lacag dhan 22 milyan oo dollarka Mareykanka. Haddaba maanta bas aad isku diiwaan